xikmadda uu ilaahay shayaadiinta u xidhxidhay ramadaan maxay tahay ayaynu ku daraynaa xikmadduna waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaliim ilaahay waa kariim ilaahay waa ghafuur ilaahay wuu jecel yahay inuu addoomihiisa u dembi dhaafo marka dadkii laa ilaaha ila allah yidhi ee uu shaydaanku xurtada ku qabsaday ee ilowsiiyey wax walba oo cibaadadii ilaahay ku amray ah wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey jaanis ramadaan ay kaga takhallusaan shaydaanka xurtada ku haysta sidaas darteed buu shayaadiintii uga xidhxidhay si ay u toobad keenaan ilaahay ugu toobad keenaan si ay u baraarugaan oo ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo noqdaan oo ay iskaga xoreeyaan silsiladaha uu shaydaanku ku haysto waayo markii uu shaydaanku xidhxidho ilaahay xidhxidhay waynu arkaynaa bani aadamkii oo dhan khayr bay ku foogan yihiin intooda badan waynu ognahay macsida iyo maxay ahayd dunuubtu siday hoos ugu dhacdo ramadaan innagaa ka markhaatiya inay shayaadiintu xidhan tahay cidna weydiin mayno marka xadiidkii aynu soo wadnay qaybtiisa saddexaad ee ah in shayaadiinta la xidhxidho innagaa ka marakacayna su-aasha labaad ee qof kale uu weydiin karaa waxay tahay shayaadiintii haddii la xidhxidhay soo tan maaha weli dadkii qaar khamriga iibinayaan qaar soo kuwan weli macsidii wada maaha soo kuwan qaar weli dadkii xantii iyo beentii iyo tuugadii iyo wixiiba jiraan maaha jawaabtuna waxay tahay sida ay yidhaahdeen imaam alqurdubi imaam ibnu xajar alcasqalaani iyo imaamyo kale oo ibnu cuthaymiin ka mid yahay oo culimmada dambe ahi waxay leeyihiin markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi xadiidka waa la xidhxidhay shayaadiintii macnaheedu xadiid kale siduu sharxayo wuxuu leeyahay wasufidat maradatu shayaadiin xadiidka iyagoo maxay ahayd daliishanaya waxay leeyihiin shayaadiinta la xidhxidhay waxa weeye kuwii ugu qabqablaysanaa shayaadiinta kuwa ugu waaweyn kuwii ugu fidnada badnaa kuwa dadka ugu xooga badan ee ku riixa xagga sharka kana hor joogsada maxay ahayd khayrka waa kuwa ilaahay xidhxidhay culimo kalena waxay leeyihiin maadaama uu shaydaanka xidhan yahay nafsul amaara ma xidhxidhna naftii qofka u riixaysay xaggii sharka ee jeclayd ee caadaysatay acmaashii khabaa'idka ahaa ma xidhna shayaadiin alinsina ma xidhna shayaadiintii dadkaa bini aadamkayna dhex lugaynaya qaarkood baa jin iyo shayaadiin ah ilaahay baa inoo sheegay shayaadiin aljin waalins marka dadka shayaadiinta insiga iyo jinkiihina ma xidhxidhna iyaguna sidoo kale dadkii caadaystay acmaasha khabiidka acmaasha xunxun ee fawaaxishka iyo dunuubta iyo macaasida qaarkood baan ka go'i karayn xataa shaydaankii haddii laga xidho oo sii wadanaya iyadoo ramadaana wallahu aclam